daawade halkan waa M252 kusoo dhow muuqaal kale haddii aad tahay ugu yaraan qof wax qori kara wax aqrin kara ama ugu yaraanba dhameeyay dugsi dhexe waxaad u baahan tahay inaad barato computer marka aan computer leeyahay kama hadlayo nooca computerka tusaale ahaan kama hadlayo supercomputer mainframe workstation laptop PC ama Mac midna kama hadlayo waxaan ka hadlayaa adeegsiga computerka haddiiba aad tahay ugu yaraan qof wax qori kara ama aqrin kara waa inaad taqaanaa sida computer loo adeegsado sababtoo ah qarniyadii hore waxaa la dhihi jiray qofka ummiga ah ee jaahilka ah waa qofka aan wax qori karin waxna aqrin karin laakiin maanta la joogo qarniga 21aad jaahilka waxaa loo yaqaanaa qofka aan computer adeegsan karin sababtoo ah nolol maalmeedkeena oo dhan ayaa ku dhisan bal adigoon isku day inaad ii sheegto meel ay shaqooyin muhiima ka socdaan oo aan computer oolin dabcan ma jirto haddii aad doonayso inaad computer barato waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago qodobo dhowr ah oo kaa caawinaya inaad computer barato ama ugu yaraan kugu riixaya ama kugu dhiirigelinaya inaad u dhaqaaqdo dhanka barashada computerka haddii baad danaynayso ila soco ila dhamayso muuqaalkan haddii aad ka faa'iidana fadlan la wadaag muuqaalkan saxaabtaada sidoo kale qodobada aan sheegi doono qodob ka mid ah gaar ahaan kan ugu dambeeya ayaan kuu banayn doonaa adiga si aad u buuxiso oo taladaada aad ugu darsato waxaan ula jeedaa haddii aad hayso qodob dadka ka caawimi kara inay computer bartaan adigana waad nala wadaagi kartaa qaybta hoose ee faalooyinka ayaana kuu banaynayaa waxaan haddeer diyaar u ah inaan bilaabo qodobada kaa caawimi kara inaad barato adeegsiga computerka qodobka koobaad ayaan kuu sheegayaa qodobka koobaad waxay tahay wax adiga kugu saabsan oo ah in ay kaa go'onaato qofka aadanuhu marka ay wax ka go'an yihiin go'aankeedana uu qaato misena aysan xiise ka ahayn waxay u badan tahay inuu waxaa natiijo ama jawaab ka keeno laakiin haddii aysan marna kaa go'nayn way adag tahay inaad barato sababtoo ah bilowga hore ayaa laga yaabaa inaad xiisayso kadibna aad ka go'do dad badanna waa ay sameeyaan dabcan laga yaabay inaad taqaano qof ka mid ah dadka xiiseeyey bilaabay haddana ka baxay qodobka labaad haddiiba aad doonayso inaad barato adeegsiga computerka waxaad ku qasban tahay ama aanan la huraynin inaad hesho computer aad adeegsato waxaan ula jeedaa ma ifahantay computer soo iibso xitaa adigoonan aqoonin suuqa tag computer soo iibso ha ka baqin inaad isticmaali weyso bilow ugu yaraan qof kuu dhow ayaa ku caawimaya waad bilaabaysaa safarkaagana halka ayuu ka bilaabanayaa laakiin haddii aadan computer lahayn ugu yaraan isku day inaad qof saaxiibka ama deris ama qof aad taqaano ama qaraabad aad ka soo qaadan karto taa waxay kaa caawimaysaa in mar kastoo aad guriga timaado aad hesho meel aad ku baraatikayso ama wax aad computerka ka dhex qabato laakiin haddii aadan computer lahayn ama aadan heli karin way adag tahay laakiin waan kugula talinaa inaad computer soo iibsato xitaa inta aadan bilaabin barashada computerka soo iibso computer qodobka saddexaad haddii aad doonayso inaad computer barato isku day inaad xaadirto ama aad iska diiwaangeliso iskuul computer oo kuu dhow qasab maaha iskuulka in uu yahay iskuul muuqda ama galaas la xaadirayo haddii aad doonto waxaad iska diiwaangelin kartaa mid online ah oo aad ka barato casharana ka qaadato haddiiba aad taas samayso waxaa maalin walba wax kugu kordhaya ama wax kaaga siyaadaya cilmiga computerka gaar ahaan inta aad maalin walba barato waxbaa kaaga sii kordhaya maadaama uu jiro macalinka hortaagan ama waqti ku bixiyey in waxa adiga aad danaynayso inaad gaarto uu ka haqabtiro qodobka afraad haddii aad iskuul xaadirto computerna soo iibsato laptop gaar ahaan haddii aad soo iibsato waxaa aad kuugu fududaanaya in cilmigii aad baratay aad guriga ku baraatikayso ama aad ku tijaabiso sidaa darteed qodobkan waxaan kugula talinayaa in aad waqti badan ku bixiso adeegsiga computerka tusaale ayaan kuu soo qaadanayaa
qofka dabaalyahanka ah ee raba inuu dabaasho ama dabaasha aad u barto waa inuu wax badan dabaashaa. qofka raba inuu kubadda xariif ku noqdo oo uu khatar ku noqdo waa inuu wax badan kubad ciyaaraa. sidaa darteed haddii aad doonayso inaad kombiyuutar baratana waa inaad waqti badan gelisaa adeegsiga kombiyuutarka. xitaa haddii aadan dan ka lahayn iska fur kombiyuutarka, adeegso, wax un samey, niyadaada waxaa ku jiraanaya waxyaabihii aad baraatikaysay ama aad qabatay. qodobka shanaad, haddii uu jiro qof kuu dhow, qofkuu doona ha noqdo, qofkaan aad u aragti inuu kaaga wanaagsan yahay adeegsiga kombiyuutarka, su-aalo weydii mar walba, la kaasho, u sheeg barbaleem haddii aad la kulanto, ka baro waxyaabo cusub, weydii wax maanta uu diyaar u yahay inuu kugu kordhiyo. ha ka xishoonin, sababtoo ah qofka waxa uu kaaga wanaagsan yahay waa la weydiiyaa, lagamana xishoodo. qodobka lixaad, haddiiba aad bilowdo barashada adeegsiga kombiyuutarka, marna ha isdhihin waxa aad baranayso keliya ayaa jira. tusaale ahaan waxaan ula jeedaa haddii aad fasal xaadirayso online ha ahaado ama galaas la fariisanayaba ha ahaadee, waxa aad galaaska ka barato keliya ha ku ekaanin. isku day inaad youtube-ka gasho, casharo badan ka kororsato, dadka wax weydiiso, wax raaraadiso, buugaag akhriso. isku day hadba inta aad awooddo inaad kororsato, ha ku ekaanin keliya inta lagu soo baray. qodobka toddobaad waa muhiim, waan ogahay, laakiin kuuma sheegayo sababtoo ah adiga ayaan kuu baneeyey. haddii aad taqaano qodob kale oo dheeriya oo qofka ka caawimi kara inuu kombiyuutar barto, fadlan nagula wadaag qaybta hoose ee faalooyinka. waxaan rajaynayaa inay dad badan kaaga mahadcelin doonaan. sidoo kale laga yaabay in qodobada aniga aan soo kordhiyey ama aan kuu sheegay oo kaaga ka muhiimsan yahay kana wanaagsan yahay. aniga xitaa waxbaan kaa baranayaa. nagu soo biiri qaybta hoose ee faalooyinka, noogu sheeg qodobka muhiimka ah ee maskaxdaada ku jira. maadaama aan ka hadlayno barashada adeegsiga kombiyuutarka, im252 academy waxaa diyaar ku ah koorso barashada kombiyuutarka aan ugu talagalay. aniga ayaa bixinaya. dabcan windows 11 iyo windows 10kii ugu dambeeyay ee microsoft ka soo baxay ayaan ku bixinayaa. haddii xitaa aadan weligaa kombiyuutar arkin, waad bilaabi kartaa. haddii wax kuu bilaaban yahayna waad baran kartaa. fadlan haddii aad doonayso inaad koorsada barato, la xiriir whatsapp-ka shaashada kaaga muuqda ama gal website-ka im252 academy oo ah im252academy.com si aad u barato barashada adeegsiga kombiyuutarka. anigoo kaaga mahadcelina waqtigaaga qiimiga badan ku bixisay daawashada muuqaalkan. qodobkee ayaad ka heshay? qodobadii aan sheegay haddii uu jiro qodob aad uga heshay, fadlan nagula wadaag qaybta hoose ee faalooyinka. inta aan ku gacan haatinin, waxaan rabaa inaan muuqaalkan uga mahadceliyo shirkadda Haleel Commodities oo ah wakiilka saxda ah ee shirkadda Samsung ku leedahay Soomaaliya. shirkadda Haleel waxaad ka helaysaa dhammaan waxyaabaha ay Samsung soo saarto oo si rasmi ay ayada wakiil uga tahay, damaanadna ay ku siinayso. xarunteeda ugu weyn waxay ku taallaa isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho. ugu dambeyntii gabagabadii muuqaalka, haddii aadan ka mid ahayn bahda im252 iyo im252 academy, fadlan nagu soo biir. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka kororsan doonto. inta laga gaariyo muuqaalka xigeenba idankii, nabadgelyo. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sun.